fanaanka weyn ee Qamar Suugaani ayaa maanta la sheegay in jirdil aad iyo aad u baxsan lagu geystay bartamaha magaalada Hargeysa. Fanaanka ayaa la sheegay in aan wax dacwad ah lagu soo oogin, dacwadaasi oo ka imaanaysay ciidamada dowladda Somaliland. Fanaanka ayaa sheegay in ay dileen ama ay jirdileen dhowr iyo 10 askari oo ka tirsan ciidamada Somaliland. fanaanka ayaa hadlay, waa kana warkiisii oo dhammaystiran. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto waan salaamayaa. Dad badan baa su'aalo iga soo weydiinaya caawa arrinta iigu dhacday, oon rabaa inaan si fiican ugu faahfaahiyo. Waxaan marayay hoteelka Star ama xaafadda Calaamada horteeda aan maraya ayaa dukaan baan ka soo baxay oo markaa ka adeegtay. Dukaankii markaan saa uga soo baxay waxay la kulantay qabtan oo ciidan yaacaya ayaa walaal maxaa dhacay baan ku yiri jira adigu muran yar kadib waxay ii sheegeen ma jiraan warqad ama dacwad ku socota oo warqad ay sidaan oo ay igu soo dacweeyeen saycidi ama dibaan sameeyay ii sheegeen already adigu gacan baa la igu bilaabay ilaa dhowr iyo 10 askari ayaa gacan ay qaaday nabarrada ii geystay. ma goobtii bay kugu dileen marka ay ka heleen mise saldhig baa loo geeyay? goobtu waa wadada dhexdeeda la igu garaacaya, gaari baa la isaaray ilaa intaan gaariga sii saarnaa nabarra igu dhacay. maxay ahaydey sidaasay u dhacday. saldhigii baa la igeeyey, wax dambi oo la igu haysta la iima sheegin, warqad la iga soo gudbiyey lama sheegin. saldhig waa kee loo geeyey? saldhiga qurac dheer baa la igeeyey. oo bima laga qoray markii saldhiga loo geeyey? xataa la iga qoray ma jiro, waxaasan kugu haysanaa layma odhan. dibadun baa la iisoo saaro la iisoo tuuray. haddana saldhiga gudihiisa jirdil miyaa lagugu geystay? nabarro way igu dhacayeen intaan sii socday ilaa markii la qaaday. wax hadal ma istiraadeen nimankii meesha haystay markii? nimankii kelmad bay igu yiraahdeen aad aan uga sii xumaaday runtii. waxay igu yiraahdeen waan ku garanaynaa, waliba heesahaagana aad baan uga jecel iyo fankaaga. laakiin waxa iga yaabisay qof ciidankayga oo booliska oo waliba ay garanaya oo waliba heesahaaga waan xiiseeyaa ilaa sababta uu igu geystay nabar ama igu dilay baa iga sii qiiraysiisay runtii. وسؤال لسه نقول دونه وحقعت سنة أنا أقول قريب مخيس كمان فكرة يو وحشرة بقولال كن أوقفه نبرد أنا جاي يقول دعاء هبين والباقي يقول دعاني يقول كيس يدم بجيسن وحقعت سنة عيدا كبولسكا إن شاء الله مرة بين أنا يقف عندم بجيسن أنا نبر كودعين. والله لسه نقول دونه دولة واحد جذب يتعدي كسر جذها دولة يوم مجالات جذه هذا واحد شردل له جيستي قبل سلبرتي أو مجا عليه والله قرنا يقول بس هو قرنا يدم بالآن لو جت شردلي waad u jeedaa ninkan nabarrada ku yaala wajigiisa jirkiisa inta kale nabarrada ku yaala ka badan dhowr iyo 10 askari saldhiga qurac dheer ka tirsan ee magaalada Hargeysa. muuqaalkaygaas cidii kasta oo soo gaadhay waa inay sii share garaysaa.